anigu tartana diyaar baan u ahay haddii laga helan si xaraga la wareejinaya horta labada gool soo dhameeyaan haddii labadoodu isku soo raacaan waa 140 soo heshiiska dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya wuxuu ahaa heshiis ku saabsan danaha labada dal madaxweyne kasta danta dalkiisa ayuu adeega waa ogtahay Itoobiya waa dal aan bad lahayn dadka ugu tirada ku nool yihiin Geeska Afrika dhaqaalihiisu aad u korayo sidaa darteed waan ognahay inay muddo ku taamisay inay hesho deked Soomaalilandna muddo dhowr iyo 30 sanadood waxaynu raadinaynay ictiraaf markii aanu wada hadalnay isaguna bad buu baahday aanu ictiraaf taasay ku fadhidaa heshiiska isfahamka in ciidankooda badda la siiyo saldhig xeebta oo badda ah oo degaan soo dawladda Itoobiya ay noqotay tii u horeysay ee Soomaaliland ictiraafta labadaasina ay mar wada dhacaan heshiiska marka la dhameeyo labada qodob bay soo ku saxaan wixii kale waa iskaashi dhinacyo badan dhaqaale nabadgeliyo maxaan ku raadaba cadan adkaatay maartay deegaanka kala cibradan isbedeshay iyo wixii la mid ah adduunku oogay ilaa 1990kii markii dawladdii lixdii lagu midoobay ay duntay Soomaaliland gaar bay dawladdu dhistay oo toodi gaar bay dhisteen marka inta xisku ma jiraan dawladoodu waa parliamentary inagu waxaan nahay presidential madaxweynenimo laba baarlamaan kala gaar ah leeyahay laba dastuur baynu kala leeyahay adduunyada kala mucaamilada marka meel ay ka soo gali karaan ma jirto laakiin bari waa la bidoobay oo anagu adduunka ictiraafay inta adduunka way ka iibiyaa laakiin deesha kuma laha mala xoog ku hadana maanta ma haya marka waxa leeyahay waxba inooga soo kordhiyo weyn wariba oo baaxmistara oo soo dhawaasha oo xuduud la soo dabciya ila dekada inta laga yaro dhisan Itoobiya dhisan marka way la kordhinaa miisaankan ku leeyahay heshiiskuna waa inta wax ka tara soo xiyeen xeerkan imika waxa soo gudbiyay golaha wakiilada anigoo aan wari ka jawaabana ka fiirsanaya shaqadiisooyay waxay warqad ka timid gudoomiyaha golaha baarlamaanka golihii sare ay warqad ka timid oranaysa ma dhamaystira jarjarada sharciyo mar lahaay noo soo celi waxa soo diray warqada gudoomiyaha gurtiisa oo yiri sharcigaasi muu dhamaysan jarjartii sharcigu mar lahaay soo celi waanu celi dood waxa dhaxtaa markaan labada gole ayay dhaxtaa sharciga ay ku murmayaan waa sax inaan gudbina naga xaq lahayn iyo meedaan lahayn ha ka soo dhawaato iyagoo wada socda oo ku heshiis hay keenan haduu waafaqsan yahay oo dastuurku waafaqsan waa siideynay haddaan siideey waa inuu ka cesho ku noqonaya sharci waxa dadka lagu jahwareeriyo iyo waxaan u buuqa bidnama marka dooda dhex taala labada gole loo daayay anigu wali waan dambeeya qolada aniga wali soo turturaysa ee anigu soo celiyo gardareeyahay hay sugaan horta labada gole soo dhameeyaan haddii labadoodu isku soo raacaan waa 140 soo qof afriso tu seel marka soo raftaan ayay wari aan xaq u leeyahay hubiyo marka halkaas maraysa maxaa kolka marka keenay labada gole isku joogaan ayuu soo baxaa hasu kitaab dayda xalay noo keena horta sharcigan sidii imka golaha kaga soo noqday guurtida ma baan lahayn way taabanayaan qoladan mucaaradka badan laba xisbiyo horreeyay wala taabanayaan ismaan lahayn waayo mucaaradku 2 sano waxay ku dagaalamayeen oo mudaharaado u keenay oo dad ku dhintay oo waxana buuqa loo sameeyay oo odayaashu soo dhaxgalay waa buuqi mucaaradka waxana ka dagaalamayeen xisbiga la furay sharciga ka dagaalamay oo sharcigu jiray inta sano mar la furo odayaashii sharciga soo farageliyay ee yiri waa fooq qaanuun dadka laga raacaya waxay xukumaan in saddexdii xisbiga hore qura ay tartamaan marka xisbiyada mucaaradka hadda shacabkana toban baahay
إلى تود الله حكوه قريه برا وكذا سيداي ورتدو تجي وسوق قراضي وكرر أو ردي مركا إلى كيانو بحد مركا سال وقال لها إلى ديدي إلى هراك صحيح صعبيو تكرر كل شيء يان قرص هاي لما حسب معارضة بكو حنور شيء دوا سو ما نترتمي صار تودي تونكي سو لقى ما أذكر ما أنتنا وحن قباه وكوي أنا سنقاني يا أنا قلت ترتوينه أنا بترتنا ديار بروح هذه اللي هي هلا سحر قال أقول لك شيء قام بوق له دور شذا ديار شذا هذه اللي هي هلا سحر قال هو قرر ما نتفيري صارت كم ديار بروح أيوة سوداء شرعية بقول كيا بقول ما لنا في سادي سوداء حقيقة كل كاحس بيضم حرنا وسعر لكم بدو عيار بورك كتشفونه وكذا تضمن حد يكون جولستان بورك واير رشيد ما شفته لكن إيوه حزبها وطني إن بدن بو كبحي بابليك على سي مجتمع ولا مقلاية دورشة سنة كا قال يقدر واير حلا قالوا كويسة قدر كويس مشت قر تبحث كسر دور سدام بذاك قرب قادرين ما أنت والله صف صحيح سد حزب قرص ثمان حبوا قينو قلني هذا تحسن كله محمد وردي وربعين تقرن كالسومالي لان هرقيسة